Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanayna inaad channelka subscribe noo saartid sidoo kale gambalelka aad furtid si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno videogan waxaan ku qaadanaynaa qaabka ugu fudud ee lagu jibiyo YouTube-ka marka run ahaantii markii aan leenahay qaabka ugu fudud ee lagu jibiyo YouTube-kaaga in laga jabsado iyo in kale adiga ayaa qofka u saamaxaya marka waxaan idinla wadaagayaa qaabka ugu fudud ee qofka ku jabsan karo oo adigna iska ilaalinaysid si aan YouTube-kaaga dhibaato ay kaaga imaanin waran waxaan soo kicinaynaa browserka kadib waxaan imaanaynaa Gmail-ka طبعا qofka doonaya inuu YouTube-ka ka jibiyo ama ka jabsado ugu horreyn waxaa qasab ku ah inuu haysto YouTube-kaas adiga isticmaalaysay in oo gacanta ku dhigo in email-ka adiga ku isticmaalaysay sababtoo ah mar hadduu milkiyo email-ka YouTube-kaas aad ku isticmaalaysay waxaa u fududaanayso inuu shaqo bilaabo balse hadduusan email-kaaga haynin waxaa ku adkaanayso inuu howshaas gudagalo for example haddeertan waxaan dhahaynaa email-ka wuu helay qofkii marka qaabka ayuu u jabsan karaa email-kaas ayuu kala garanayaa email-ka markuu meesha uu ku qoro password saxan ama midaan saxnaynba ha geliyo no matter wuxuu sameynaya kaliya inuu forgot password uu ku dhufto forgot password markuu ku dhufto ama aan dhahno meeshan waxaan gelinaynaa password qaldan inaan gelino kadib next ayaan leenahay wuxuu isku tijaabinayaa inuu passwordkaas oo ogaado markuu ku fashilmo ayuu wuxuu sameynayaa inuu kaa jibiyo in passwordkaas so passwordka soo u jibiyo wuxuu sameynayaa inuu riixo forgot password inuu dhaho forgot password markuu dhahay in waxaa la leeyahay in waxaad gelisaa meeshan passwordkii ugu dambeeyay ee aad ku isticmaashay marka haddii uu geliyo passwordka ugu dambeeyay meeshan waxaa dhacayso in oo option kale loo soo geliyay hadduusan ka waran oosan gelinin oo passwordkii oo geliyo mid qaldan sidoo kale waxaa loo soo gudbinayaa stepka kale marka ka waran haddii uu halkan oo riixo sidoo kale isla stepka kale ayuu aadayaa stepka kale waxaan ka wadaa haddii halkan aan ku qorno passwordkii aan ku isticmaali jirnay ama password jirin halkan haddii aan ku qorno ama haddii aan halkan aan riixno intoodaba waa isku mid marka qofku markii password ku soo filgareeyo oo halkan imaado waxaa leeyahay password geli marka ma bahayo wuxuu gelinayaa wax qalad ama halkan ayuu riixayaa mar alla markuu dhankaas oo ku dhufto automatically waxaa dhici doono in code soo baxo codekaasna wuxuu xadidayaa masiirka YouTube-kaaga yacni codeka ma aha code asiga mobilkiisa aadi doono codeka wuxuu aadi doonaa mobilka adiga aad Gmail-ka aad ku isticmaashid oo kaaga furan yahay mar alla markii oo Gmail-kaas codekaas imaado wuxuu sugayaa two option inaad adiga u ogolaadid ama inaad u diidid hadda saad arkaysid farinta oo codeka noo soo diray wuxuu leeyahay don't see the sign in notification yani notification-ka aan ku dirnay miyadan arkin miyaa ayuu leeyahay balse mobilkii oo original-ka ahaa oo ku xirnaa in Gmail-kaas ayaa code aaday codekaasna haddii haddeertan aan dhahno no qofkan waxaa la leeyahay codeka ama notification-ka aan dirnay no ayaa lagu soo jawaabay balse haddeertan haddii aan yes aan dhahno oo halkan kaliya aan kali garayno automatically wuxuu la wareegay Gmail-keena marka haddeertan waxaan leenahay by mistake waan ku fududaanay yes ayaan riixaynaa haddii aan no aan dhahno waxay la micno tahay farintii ayaan fahanay waan diidnay marka ka waran haddii aan mistake ahaan yes aan u riixno maxaa dhici doono fiiri automatically computerkii wuxuu ogaaday in halkaas yes lagu soo dhuftay wuxuuna ogolaaday in passwordka laga bedelo mar alla markii halkan passwordka laga bedelani oo qofka waxaa awood u lahaaday in uu kala wareego Gmail-kaaga sidoo kale waxaa awood u lahaaday inuu kala wareego in YouTube-kaaga haddii haddeertan oo passwordka halkan aan ku qorno fiiri waxaan arkaynaa passwordkan aan ku qorno kadib sidoo kale meeshan aan ku qorno waxaan leenahay yes ayaan leenahay okay save markaan soo dhahno waxaad arkaysaa inuu leeyahay passwordkii waa la reset gareeyay ama waad bedeshay marka haddeertan qofkan wuxuu awood u leeyahay in oo Gmail-kan oo maamulo wax alaala wixii Gmail-kan hoos yimaado idinna asiga ayaa maamulo haddii ahaa lahayd YouTube-kaaga iyo wixii kale documenti ah ee ku dhex jiro in Gmail-kaaga marka hadda maadaama aan dhahno qofka oo ka jibiyay wuxuu awood u leeyahay in oo channel-ka wax ka bedelo oo wuxuu rabo ku sameeyo oo channel-ka tira hadduu u baahan yahay haddii kalena in channel-kaas ku sii xiro Gmail kale Gmail-kaasna guud ahaanba oo
ku wareego. Hadda saad arkaysid qofkii markuu bedelay passwordka wuxuu awood u leeyahay in oo channelkaaga ka yimaado. Hadda halkaan dii aan riixno waxaan leenahay channelkan aan sii tagno channelkan u baana markii aan soo galnana waxaan fiirinaynaa channelka hadeertaan halkaan aan ku isticmaalno. saad arkaysid wuxuu awood u lahaaday inuu qofkan soo galo oo video soo upload gareeyo waxa uu ka tiro. yacni waxaan dhihi karnaa wuxuu milkiyay guud ahaan channelka. marka waxaan kula tali lahaa haddii aad aragtid fariin kaga timaaday gmailka ama googleka ama youtube-ka adigoo aadan si fiican iskaga fiirin yes ama no ha ku dhufan, waayo wuxuu saameyn weyn u geysan doonaa waxyaala adiga aan u malaynaynin. yes taas kaliya aan riixnay ayaa hadeertaan waxay suurgelisay in channelkan ama youtube-keena laga wareego, sidoo kale gmailkana passwordkana laga bedelo. marka waxaan idinkaga digayaa fariin walba oo idin timaado iska fiiriya inta aadan yes ama no aadan dooran. waxaa habboon in aad iska hubisid fariinta waxay tahay kadibna go-aan aad ka qaadatid. haddii aad shayga aad fahmi weysa xataa luuqad kale ay ku qoran tahay aad aragtid in waxaad sameysaa keliya in aadan option ba aad u ogolaanin aad ka wada baxdid, waayo qofka haddii aad yes or no aan riixin waxaa loo soo bandhigayaa in fariinta aan kuu soo dirnay kuma soo gaarin miya ama mobiilka fariinta aan u dirnay ma arki miya in waxaas loo soo bandhigo. had iyo jeerna wuxuu isku dayayaa in oo gmailkaas oo jibiyo, balse ma awoodi karayo adiga ayaadan u ogolaanaynin in oo u gudogalo howshiisa. waana ku mahadsan tahay daawashadaada. videogeena halkan uu ka yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.